بسم الله أنا وحنا هوين كلمة كم غاية هاي وحلا يقول هذا فاطمة علي جبريل إن كيجا وحلا هذا عبد الحكيم محمد عبد الله هذا المر إنه وحنا هاي هوين كأولاد ودوايي وكم غايهين دمشق يشرع لي مشكو بتباتسني مشكو بنت الله بقرنيا مدحوينا بدلان مدحوينا الصومالي مدحوينا شدي ويوحنا كعد سنة اسمه اللي بيتشوجان شركة المستمرة بيتشوجان وحنا كعد سنة سيدك ولا شاور كذا عنه هلا صوت وكنت هاي وحوي ولا شدنا دنتني النولي هلا نجمع قداني وين هاي نص الشيء يا عمال ودقي إن كي معلنتي وجود معلنتي لقري ويرنم مسؤول نجاها والسير كحجينا بعنا أنا يقري يدوي أنا ما قننا والسير كحجان كوا والسير كحجان الصومالية marka waxa weeye si degdeg inaan warka aw labaan rubnaa wiilkaas wuxuu tagay 2020 bishii labaad sanadkii hore inanka xamar buu tagay xamar baa laga qaado laga qortay anigu maanan meel uma dirsan maanan qorin kamaanan warqabin cid qortayna ma oji ciidan baa lagu diraa leeyri aniga inankaas way la soo hadlay maalintii ugu dambeysay uu tagay wuxuu yiri waxaan noo qaadaya way qadar baan noo qaadaya 6 bilood tababarana loo qaadaya waxa weeye anigu qadartii un baan u haysanay inuu jiro waxa la sheegay in aan qadar loo qaadin ciidankii uu ku jiray meel kale loo qaado nilagama soo warramin hadda 2 bilood baa la qaylinaya dadka waalidiinta qalin wax uga soo jawaabina malaha qof meel lagu xeeraystay oo de ku xidhan daano qofku waa hadli kara oo dadkii ma la hadli kara waran kara inuu dhintay inuu dhaawac yahay inuu maxay ahaydeenay de wax amar kala haysto anuu ma garanayo Soomaaliarkin madaxweynaha Soomaaliya wax ka codsanaya inanka inuu la soo socodsiiyo oo maxay tan cidii hay'adii ay qusayso arintaas ay ka soo jawaabto oo ilaa degdegna la ila soo dalsiyo dunooli haduu dhintana la soo sheego haduu dhaawac la soo sheego saasa codsanaya Cabdi Xakiin Maxamed Cabdullaahi Dalmar maxay tan inankaas isagu bay la soo hadlay aniga cid qoratay oo ila soo hadashay la soo xiriirsiyo ma jirin ciidan baan qortay ugu yiri waxa way ciidankaas waa la qaaday adigu muddo bila buu sii joogay uu ila soo xiriir jiray oo ila saadi jiray inta wuxuu oran jiray way wana la qaaday xilligaasna la qaaday si imo oran adigu markuu ugu dambeeyay ina yar baa lambarkiisa aan ka helay wuxuu yiri wiilkaas waa tagay lambarkiina aan wata oo lambarkiisa waa laga reebay wiil inankaas xataa intuu meesha si joogay kama warqabo iyo inankiiba la qaado diyaarada saaray ma bacdayn karo ilama uu soo hadlin meel aan warkiisa tan iyo xilliga labada ay tahay 2020 bishii labaad bishii koowaadna garowga tagay wax waraan ka hayaa ma jirto marka inanka waxaan codsanayaa warkiisa oo degdeg ah in la soo gudbiyo haduu nooliya taduu dhintana geeradu xaq way la soo sheego assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay maama ku nool magaalada Garowe waxaan naga maqan wiil baa iga maqan walaalkeeya waxaan joogay magaalada Boosaaso jaamacad ka dhiganayay 2020 bishii koowaad buu wuxuu ka tagay magaalada Boosaaso jaamacad buu dhiganayay 2 semester baa jaamacad uga harsanayd wuxuu noo sheegay inuu Boosaaso tagayo ciidan qadar xamar tagayo ciidan qadar loo qaadayana uu raacayo markay ahayd bishii koowaad xaga ka tagay bishii labaad saddexdeedii wuxuu yiri waan baxayaa oday baa idamiintay buu nagu yiri islaamiyadu aanan garanayn kaarkii iyo mobilkiina waa la iga reebay meeshaas ciidan ka qaadana cid kale lama soo xiriirin maxaan ku radaa dawladuna lama soo xiriirin cid qaadina lama soo xiriirin asaga baa wuxuu nagu yiri ciidan qadar aadaya baan la ku daraya waxaan misana ku tirkutaan kale ku maqalay inaan ciidan qadar loo qaaday uu san raacine ciidan Suudaan loo qaaday lagu daray waxaan ka codsanaynaa marka dawladda sharafta leh madaxweynaha Farmaajo ra'iisul wasaarihii markaa haystay oo joogay ra'iisul wasaarihii hore waxaan ka codsanaynaa inay awlaadayadii meel noogu sheegaan dad dadku badan baa awlaadu ka maqan tahay Soomaalidu oo dhan bay ka maqan tahay wiilasheedii meelaha noogu soo cadeeyeen Saciid Cabdullaahi Dani oo hadda shirkad uu Samareeb ka qayb galaya waxaan ka rabnaa hadaan nahay hooyooyinka Puntland oo awlaadu ka maqan tahay inuu wiilasheedii meel noogu soo cadeeyo maadaama uu isagu noo yahay madaxweyne noo yahay haddana uu shirka isugu imaanayso Soomaali weyn uu ka qayb galay sidaasaan ka codsanaynaa si degdeg ah warkayaga hanoo soo gudbiyo warka in loo soo gudbiyaan doonayna meesha lambarada noo xiriirno ku soo xiriirayana waa sheegayna lambarka waxaan wataa 78 lambarka oo waliba WhatsApp-na ilaa lambarkaas hal igala soo xiriiro si degdeg ah warka inaan helaan doonayna oo aan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh